kulankan ay iskugu yimaadeen xarunta golaha shacabka mudanayaasha baarlamaanka uu shir gudoominayay afayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari kooramka xildhibaanada uu ahaa 215 mudane ayaa ajandaha maanta uu ahaa in madaxweynaha uu horkeeno ra'iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay si baarlamaanka kalsooni ugu helo waxaa kulanka ugu horeen furay afayeenka baarlamaanka oo xildhibaanada u sheegay ajandaha maanta ay uga hadlayaan iyadoo inta kadibna hadalka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xildhibaanada si faahfaahsan uga hadlay sababay ku soo xushay Cabdi Faarax Sheekhdon Saacid inuu ka dhigo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaana madaxweynaha uu sheegay in sababay ra'iisul wasaaraha uu ku soo xushay inay ka mid ahayd inuu yahay shakhsi awood u leh sida uu tilmaamay inuu wax ka qabto dhibaatooyinka shacabka haysta Cabdi Faarax Sheekhdon Saacid maanta hortiina ayaan taaganahay mar kale iyadoo uu isu kaayo keentay waajib gudashadaas waxaan qirayaa in dalbashadiina in aan idin hor keeno mudane Saacid iyadoo weli lagu jiro muddada dastuuriga ah ay tusinayso sida ay idinkaga go'an tahay oo aad ugu heelan tihiin gudashada waajibaadkiina qaran iyo garashada baahida loo qabo in la dardargeliyo howlaha baaxadda weyn ee sugaya qaybaha dowladda ee ay baarlamaanka iyo fulinta ugu horeeyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Sheekhdon Saacid oo xildhibaanada ay u fadhiyeen in codka kalsoonida ay siiyaan ayaa waxa uu tilmaamay haddii xildhibaanada ay codka kalsoonida ay siiyaan in wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka shacabka haysta dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabo badan mudane madaxweyne saldhigga aasaasiga ah ee barnaamijka horudhaca siyaasadeed ee xukuumadda aan hogaamin doono kadib marka aan helo kalsoonidiina wuxuu ka kooban yahay siyaasadda arrimaha gudaha arrimaha dhaqaalaha adeega bulshada iyo siyaasadda arrimaha dibadda waa ku horumaraya qodobay ka kooban tahay si kooban sugidda amniga iyo xasilinta dalka la dagaalanka argagixisada xagjirnimada iyo xaqiijinta dhaqan celintooda iyo ka hortagga burcadbadeeda firqada labaad baan ugu bahayaa xaqiijinta garsoorka iyo cadaaladda yagleelidda iyo baahinta nidaam dowladeed ee shaqeeya oo waxtar ah intaasi kadib ayaa gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu ku dhawaaqay in xildhibaanada ay u codeynayaan inta kalsoonida si buuxda u siisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu noqdo Cabdi Faarax Sheekhdon Saacid oo madaxweynaha uu dhamaan uu magacaabay waxayna xildhibaanadii oo kooramkoodu ahaa 215 mudane ee dhamaantood u codeeyeen in kalsoonidii ay siiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee madaxweynaha uu horkeenay waxaana natiijada codeyntaasi ku dhawaaqay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari afayeenka baarlamaanka xildhibaanadu joog waa 215 xildhibaan markii kalsoonida aan diiday aan u bandhignay mooshinkeeda waxa ay ku raaceen 215 ha inta aamusan ma jirto waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha waxaan la jooga badan gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan ka codsanayaa mariyo qaabka dastuurka ku qoran ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay inay codka kalsoonida ay siiyeen Cabdi Faarax Sheekhdon Saacid inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana tilmaamay Cabdi Faarax Sheekhdon Saacid inuu yahay shakhsi wax ka bedeli kara daruufaha adag ee ku nool yihiin shacabka Soomaaliyeed kulankan oo ahaa mid in muddo ah ay ka dhulsagayaan shacabka Soomaaliyeed natiijada ka soo bixaysa kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha cusub ayaa gabagabadii waxa soo gunaanaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in xildhibaanadu si weyn ugu mahadcelinayo inay codkii kalsoonida ay siiyeen ra'iisul wasaarihii uu soo magacaabay
وحاولنا الشيخ حسن شيخ محمود إن عبد فارح شيخدان ساعد رئيس الوزراء ومقعابي إنه كسوغيو وحيابيه هور الله شيخ إن رئيس الوزراء لقد doonaya inuu qabto inuu ka soo dhalaalo asagoo sidoo kale sheegay inay ka fogaan doonto dawladda uu madaxda u yahay khilaafaad soo kala dhaxgala madaxda dawladda ugu sareysa sameynta taariikhda cusub ee Soomaaliya iyo baahka rogida wada hor leh ee Soomaaliya cusub aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa waan ku mahadsanyihiin sida xilkasnimada ah ee baarlamaanku oo amuurtaas uga jawaabay ما دوني إن عن كهبلو حكومة iyo waxa laga sugayo iyo muxuu ahaay shaqadeeda gudoomiyaha baarlamaanka uu tilmaamay rajada baarlamaanka iyo baarlamaanka waxa uu rajaynayo kulankan ay iskugu yimaadeen xarunta golaha shacabka oo codka kalsoonida ay ku siiyeen ra'iisul wasaaraha cusub oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ra'iisul wasaaraha mudanayaasha baarlamaanka ay ka sugayaan in codka kalsoonida uu qaado ra'iisul golaha wasiirada uu dhawaan uu magacaabi doono كين عمر مكران رويال تي في مقالة المقدشو.